السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan la joognaa abwaan maxamed Shaqaburi. abwaan waxaan ku weydiinayaa ka waran dhibaatooyinka taagan Soomaaliya gaar ahaan qaadka Soomaaliya la keenay oo haddana markii horeetii la keenay haddana la joojiyay haddana lagu soo celiyay ka war wallahi arrintaasi waa arrin aad iyo aad looga xumaado. Soomaalidii hore maanta joogta maahay waxa ku maamaahay jirtay ama ku ducaysan jirtay Ilaahay oo haayo maya mar hanaga wada yeersin nin qaad joojiya haddana soo iyo nin kale igu fasaxaan marka maanta nin Italiya ma aqaano dhibaatada haysatay kamid tahay. waxaan leeyahay adduunyada ninkii qowlahow qaali baa tahay ninkii shalay taqaadiidayo qeexay baa tahay maantana adaa qiray xumaa qaarada rogay qalin baad ku duugteen inuu qaadku soo degay Kenyatta qowlku dhahaad ugu qosleysaa Kenyatta qowlku dhahaad ugu qosleysaa oo ka qarankii shaashoobayo qaybsay aadmigii ana qoomiyuun baan dibnaa qowda ku hayaaya ana qoomiyuun baan dibnaa qowda ku hayaaya ana quusa qoonina wax badan kuma qayshayna qayladhaanta ee baan u diray qaayinka tahay su'aalaha qiyaamaha jiriyo qorole waaweyn iska qaado samir baan qabsaday waxa qasaysan oo iga dhantisahay aad iyo aad waa mahadsantahay abwaan kaasna waxa maxamed Shaqaburi oo noo mariyay tixgabay oo ka hadlaysa xaaladda qaadka xasan sheekh uu fasaxay markii horena uu xiray. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawasho wanaagsan.